magaalada Muqdisho xarunta Hana Academy ayaa waxa ay bilowday inay tosho maryaha afka lagu xirto ee looga hortago xanuunka coronavirus. Hay'addu waxa ay sheegtay in maalintii ay tosho in ka badan 2,000 oo xabo. Agabkaasi waxaa dalbada hay'adaha dawladda, kuwa gaarka loo leeyahay iyo waliba xarumaha caafimaadka. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. waa koox dhalinyaro ah waxay dhammaantood ku mashquulsan yihiin wax soo saar maalinle ah waxay gacmahooda ku telayaan marada lagu xirto afka ee maaskarada si qofkay kaga difaacdo hawada kaga imaanaysa bannaanka loogana taxadaro fididda caabuqa coronavirus xilligan waxaa suuqyada gabaabsi ka sii ah maryaha afka lagu xirto xilli adduunyadu ay tahay mid kala xiran madaxa xarunta Hana Academy oo la timid hal abuurkan ayaa uga warantay VOA baahida loo qabo waxaan arkay baahi badan inay jirto sababtoo ah wadankii lagu xirnaa oo alaabadaha soo dhiibi jiray sida face mask China ahaa China haddii cudurka uu ka dhacay ma dhiibi karaan qof kastana wuxuu rabaa supply-ga uu haysto inuu oo dib u cishto marka waxaan rabnay in aan run ahaantii aan kaalin weyn ka ciyaarno saan ummadeena Soomaaliyeed aan u badbaadin lahayn labo in aan dhalinyarada shaqo abuur aan uga dhigno marka loo eego midka laga keenay dalka dibadiisa waxa caadi ahaan loogu talagalay in qofku xirto muddo kooban halka midkan ay soo saareen xirfadleyda dhalinyarada ahna uu leeyahay isticmaal muddo dheer jiri karayo face mask oo laga keenayo China oo kale mise wadamada kale waxaad xiranaysaa 4 saac oo kaliya 4 saac kaliya ka bacdi waad tuuraysaa marka tuurtid maalintii waxa lagu xisaabiyay 3 xabo inaad u baahan tahay annaga marka waxaan rabnay in aan suubino face mask qarashkiisa uu yar yahay si aan dhaqaalaha wadanka aan kaalin weyn aan uga ciyaarno annagoo dadkii badbaadinayno annagoo shaqo abuur suubinayno dadkiina jeebkoodii aan u naxno qofkii iibsado 2 xabo maalinta uu xirto hal xabo maalinta kale toodna xabadii ka wasaqayd shalay uu xirtay oo kale ayuu dhaqanayaa biyo kuleel ah oo markano oo boiled ah iyo cusbo yar leh ayuu ku dhaqanayaa qofkaas xarumaha caafimaad isbitaalada xafiisyada dawladda iyo kuwa aan dawliga ahaynba waxay hadda dalbanayaan wax soo saarka xaruntan maalintii waxaan soo saarnaa 2,000 ilaa 2,500 waqtigan xaadirka ah laakiin waxaan ku tala jirnaa inaan soo saarno maalintii 10,000 ayaan rabnaa wixii 2 maalin ka bacdi insha Allah waxa la geeyaa oo kale kambaniyada private-ka ah way iibsadaan waxa kale iibsado dadka gobolka Banaadir iyo dadka kale toda masaakiinta oo barakacayaasha ahna waxaan rabnaa inaan u geeyno haddii alla idmo mid ka mid ah macaamiisha iibsaday wax soo saarka xarunta ayaa u sheegay VOA inuu leeyahay tayo wanaagsan marka loo eego midka dibadda laga keeno waa mid dalka lagu sameeyay oo aad iyo aad u tayo fiican oo dabooli karana maanta baahida wadanka jirta si kii dibadda laga keenay maadaama uu yaraaday baahidina ay badatay hadda oo dadkina awareness-ka ay si fiican u qaadanayaan marka sidaas marka ku qaadanay noocan Soomaaliya xilligan la tacaalaysa sida lagu yareyn karo fididda caabuqa COVID-19 waxay baahi u qabtaa adeegyo caafimaad ay ugu horeeyaan mashiinka dadka neefta siiya qalabka afka lagu xirtay maskarada loo yaqaan kuwa jeermiska dila iyo wax walba suuragal ka dhigi kara sidii lagu yareyn lahaa fididda caabuqa COVID-19 Cabdulqaadir Okey qubanaha VOA Muqdisho